الحمد لله horta dhacdadani markay dhalintii iyo daayarto ama rag iyo dumarku xiriir iyo xasaawo sameeyaan aan xuduudii sharciga ahayd ku salaysnayn in badan bay sidan oo kala dhacdaa taasi waa khalad iyo dembi dhacay ilaahayna toobada uu aqbalaa haddii looga toobad keeno waxyaabaha laga toobad keeno nusuusta qur-aanku sheegtay is aqbalana zinada lafteeda ka mid ah إلهي سبحانه وتعالى آخر كسورة الفرقان وآيات القرآن كشيء إلا من تاب مؤمنين تمرك لجسوا هلا عباد الرحمن ولا يزنون مزين يستان لجري كذبوا على دوادق إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلهي سبحانه وتعالى ودم بدافع يقفك الدم بقية توبة كان دو كلي ماده إن شاء الله تعالى laakiin laba arrimood baa mudan munaasabada inaan baraarujiyo gabadhan su'aasheedana ka muuqda munaasabada koobaadi ilmahan sidan ku calool galay waa ilmo u calool xaaraan way hatta labadooda haday isguursadaan abtirka iyo nasabka aabaha qaadan maayo xadiidka Abdullah ibn Amr ibn Aas ee xasanka ahaa imaam Abu Daawud fi sunanihi ku warinayayna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay ilmaha zinada ku calool galay inuu waladu zinaya وإن استلحقه حتى أدور هذا أنا علي شرعا ما دارين صدرت ورد علي شرعا يا ما دارين أحكام باك دارنايس أحكام تقدرنايس وحاكم هذا بحال باي مناي بحالك وحكم الله المهن ويري جورك ودوري هالنقطة وحاء منايسة ضد محرم نقول لها نينك هو يدي نينك ولاشي أبيه walaalkii ilmaha wiil iyo gabarku noqdaba ma aha dad raxima oo ahal lah ay maxramnimo ka dhaxaysa ma aha fuqaada qaarkood waxay gaarsiisay sida fuqaada Shaafici raxmatullaahi calayhim jamiican inay yiraahdaan ninku gabadh haday noqoto ninkaasi way u banaantay inuu guursado aan halka kala fogaanshiya ajnabi ay ka hadlayaan xuquuq ma laha dhaxal buusan lahayn nafaqiya bil buusan lahayn abtir iyo nasab buusan lahayn maxramiyadii buusan lahayn taasi waxay keenaysaa ilmaha inaan la qarin oo la qeexo isagana waa ku waajib iyada saa'iladaana waa ku waajib in ilmahan inuu wacal yahay oo reerka sidaa ku soo galay oo san dhaxalka iyo abtirka iyo wax ku lahayn qoyskii xagga aabahana maxram uusan u ahayn in la qeexo way haddaan la qeexin wax kastoo dembi oo ka dhasha oo xaq darro uu ku qaato ama sidaan sharci ku banaanayn intuu ugu dhunto maxramnimo u dhaxgalay inta ay socoto dembigeedu waa jiraya uma sanna sunnatan sayyatan baa noqonaysa qofkii dembi sabab u noqdana de dembiga intuu socdo dushiisa waa waalidkana qodobka labaad reeraan baraarujiyo xilliga waxa meherka loo sameeyo dhaqan xun oo Soomaalidu leeyahay oo asturaad la yiraahdo way waxa looga mehirinaya gabadha oo loo digdiyo damdhahayo wacalkan in la qariyo way qaladkay galeen in la qariyo way qaladka kala hadii si kala lagu asturi karo ma xuma oo man satara musliman bay noqon laakiin ilmahan in la qariyo waalidka dambaabaya wadaadka ogay meheriya dambaabaya kan waxbaan mehirsan leh baa dambaabaya iyadii baa dambaabaysa hadii arintii la qariyana in qof kastaba kaalintii uu ku lahaa dambiyada gadaal ka dhasha wax ku yeelanaya saas darteed waalidkuna arinta ha ka digtoonaadaan gabadha iyo ninkan isqabana ilmaha ninka aabba uma aha sharciye waa inay cadeeyaan min tawbatihim bay ka mid tahay wabayanu bay aayadka qaarkood ku xireen tawbada in la cadeeyo wabillahi tawfiiq